ummadii hadday kala baaba'san tahay oo ay kala burbursan tahay oo ay kala qaxayso sheekh xasan yaad maamulaysaa nin kastoo doonaya inuu xil qabto dhalinyaradii badday ku dhammaadeen dhalinyaradii waddankoodii kuma kalsoono hadday wax bartaanna shaqo ka heli maayaan waxaad madax u tihiin cid kastoo madax noqonaysa dadka jilicsan oo ma tihiin madax dadka dheragsan waxaan doonayaa inaan ka qayb qaato soo dhaweynta madaxweynihii hore ahna musharax xasan sheekh maxamuud jazaahu allahu khayran iyo mashaayikhda la socotaba si guud anoon asaga hadda u bartilmaamaysanaynin hadalkana oo la jeedin kalimaadkan soo socdaan doonayaa inaan warkay ku soo koobo warkay wuxuu ku socdaa nin kasta oo damca oo doona oo hamiya oo u soo xaydxayta oo u soo labista inuu ummadda Soomaaliyeed xil u qabto ummadani waa ummad baaba'san oo jilicsan qofka doonaya inuu xil u qabtaayi horta waa inuu yahay qof Ilaahay ooga baqaya subhanahu wa ta'ala qofka ummadan doonaya inuu xil u qabtaayi wuxuu xilka u qaadaya waa inuu yaqaano ma naftiisu xilka u qaadaya iga tiriya ma dhaqaalihiisu xil u aruursanaya ma qabiilkiisu xilka u qaadaya mise ummad buu xil u qaadaya arrinkaasi waa inay xisaab muhiim ay noqoto inaad ummad xil u qaadayso xilkaana laga tirinayo adduuniya aakhiraba qaala tacaala waqifuuhum innahum mas'uuluun istaajiya waa kuwa wax la weydiin doona maalinta qiyaamo waxaa kaloon doonayaa inaan ayadana ku daro oon raaciyo oo muhiim ah waa inuu mas'uuliyadda dareemo qof kasta oo ummadan xil u qaadaya mas'uuliyadda bulshada mas'uuliyadda diinteeda iyo mas'uuliyadda waddankeeda away dhalinyaradii madaxdaan la hadlayaa cid kastoo doonaysa inay maanta madax noqotaa hal su'aal isweydii yaad xukumaysaa ummadii hadday kala baaba'san tahay oo ay kala burbursan tahay oo ay kala qaxayso sheekh xasan yaad maamulaysaa nin kastoo doonaya inuu xil qabto dhalinyaradii badday ku dhammaadeen dhalinyaradii waddankoodii kuma kalsoono hadday wax bartaanna shaqo ka heli maayaan ummadan ayada ayaa markaa yaa la xukumaya qof kasta oo madaxweyne noqonaya waa inuu xisaabtaa marka ku darsado kelimada ma dheeranaya biidnillaahi caza wajal waxaad madax u tihiin cid kasta oo madax noqonaysa dadka jilicsan oo ma tihiin madax dadka dheragsan waxaad madax u noqonaysaan haweenka umusha ah haweenka duurka ku umulaya iyo dadka cagahooda waayay ee indhahooda waayay dadkaasaad madax u tihiin qof dheragsan madax oo ma tihiin ee waxaad madax u tihiin dadka baaba'san ee jilicsan waxaad madax u tihiin ummadoo dhan isu keena qabiil ma tihiin waxaad tihiin madaxweyne ummadoo dhan u dhaxeeyaa tahay saa daraaddeed ummadda isu keena oo qabta culummada isticmaala oo cuqalada isticmaala oo dadka waxgaradka isticmaala oo kharash iyo dhaqaalo ku bixiya oo ummadan diinteedii u soo nooleeya akhlaaqdeedana insha Allah u soo celiya wabarakallahu fiikum wajazaakum Allahu khayran wa ahsana Allahu ilaykum wassalamu alaykum wa rahmatullah